kusoo dhawaada barnaamijkeennii cunno karinta ahaa oo la magac baxay cunnadii wacneed. Anigu waa Sheekh Cabdicasiis Caawo. waxaan idin hayaa laba nooc. mid waxa weeye waa Chinese style coriander beef, nooc ka mid ah steegyada oo maaragtay oo beefka ah. waan ku suubinaya kabsar caleen iyo basal, iyo ku suubinaya oo ilaahay ku roon yahay spinach. waan ku suubinaya laba nooc oo maaragtay barbarooni gaduudan iyo kii gaduudka ahaa. yaanyada waa optional, daarto waa ku daraysaa, iyo basal iyo basbaas. waxaan kaloo ku darayaa cusbo, waxaan ku darayaa saliid, waxaan ku darayaa bur ayaan ku darayaa waa ujeedaan. waxaan kaloo ku darayaa ginger iyo maaragtay iyo toon aan googooyo aan yareereeyey waan ku darayaa. waxaan kaloo ku darayaa soya sauce, waa ku darsan kartaa. haddaadan dad badan baadan soya sauce-ka jeclayn, meesha soya sauce-ka aad kaga daraysa liimdhaan waa ku darsan kartaa. haddii kale waxaad suubinaysaa xawaajkii Soomaalida ahaa iyo iyadoo maaragtay liimdhaan ayaad isku daraysaa. kadibna saliid ayaad maaragtay ku garaacaysaa. markaad si fiican u garaacdo kadib waa ku darsan kartaa meesha soy sauce aad kaga dartay. hodhowtana dusha waxaa kaga dari kartaa in yaroo cusbe. waxaan kaloo idiin hayaa caawa nooc kaloo Moroccan food waxa weeye waa carrots oo biyo aan kusoo karkariyey. carrotskii markaan 12 daqiiqo aan biyo ku karkariyey kadibna waa miirayaa. waxaan glaze kaga dhigayaa maraq, iyo waxaan ku darayaa in yaroo cusbe in yaroo black pepper. intaas weeye, wax kale ma asagana waa side dish freeze ayaa lagu cuni doonaa. basashii, hilibkii, beefkii, waxa walba u jeedaan so far everything waa complete weeye. waxa aan yeelayaa aan soo qaadanayaa burkii ayaan soo qaatay. hal qaado waxaan soo qaadanayaa oo bure. waxa aan dusha kaga darayaa burkii, waxaan dusha kaga darayaa beefkii oo hilibka ahaa oo aan yareereeyey ayaan dusha kaga darayaa halka qaado. waxaad kaloo ku darsan kartaa in yaroo maaragtay bread crumbs waa ku dari karaa, dusha kaga darayaa. bread crumbska waa optional way, aniga ayaa jecel anaa ku darsada wax yaroo bread crumbs aan dusha kaga daray. waxaan si fiican iskugu qasayaa burkii iyo beefkii hilibka ahaa ayaa si fiican isku qasayaa. dhinaca kalena waxa aan saartay woogii oo aan kululeynayo, si fiican u kululeynayo oo medium heat markuu si fiican u kululoodo. geesaha ayaan waxaan ka marinayaa xoogaa yaroo saliida ayaan ku shubayaa. kadibna beefka ayaan maaragtay ku fry garaynayaa ama aan ku stir fry ku suubinayaa. marka oo xoogaa yar oo si fiican u guduuto aan walaaqo oo si fiican u kululaado guduuto, waxa aan ku darayaa toontii iyo waxa aan ku darayaa ginger aan yaryareeyey. si fiican ayaan maaragtay gingerka iyo toonta isla dhex gelinayaa, si fiican ayaan u walaaqayaa. kadibna waxa aan ku darayaa kabsar caleentii ayaan si fiican u dhex gelinayaa, aan ku walaaqayaa. waxaan isla karinayaa 3 daqiiqo ilaa 4 daqiiqo. kadibna waxa aan ku darsanayaa xawaajkii iyo liimdhanaantii iyo saliidii. markay si fiican isku dhex galaan ilaa 3 daqiiqo ilaa 4 daqiiqo waan ka bixinayaa, dhinac ayaan dhiganayaa. waxa aan soo qaatay barbaroonigii cagaarnaa iyo barbaroonigii gaduudka ahaa, ayagana si fiican ayaan u shiilayaa. markay xoogaa yar isla jilcaan waxa aan ku darayaa yaanyadii. yaanyada waa optional, haddaa rabto waa ku darsan kartaa, haddaa rabto waa iska dayn kartaa. waxaan kaloo ku darayaa wax yaroo maaragtay oo soya sauce. kadibna waxa aan ku darayaa basashii. in xoogaa ayaan isla karinayaa. hilibkii ayaan soo qaatay, kadibna waxa aan ku soo ceshtay weelkii woog ahaan wax ku suubsanayay ayaan ku soo celiyey. wax yar oo cusbo ayaan ku darayaa iyo wax yaroo liima dhanaane. waxa aan ku darayaa basbaas cagaarkii iyo basbaas gaduudkii qalalna. waxaa habboon marka beefka noocan aad suuginaysid inaad cusbada ka yaraysid haddii aad soya sauce aad isticmaalaysid. basal cagaarkii ayaan ku darayaa.
waxaan soo qaatay digsi waxaan ku shubayaa saliid kadibna carrotskii aan biyo iyo cusbo ku karkariyay 8 daqiiqo ayaan digsigii ku shubtay xogaa yaroo nutmeg ayaan ku daray iyo chili powder hadda waxaan ku darayaa malabkii iyo maaragtay limadnaankii aan maaragtay isku dhex daray si fiican ayaan maaragtay ilaa 2 ilaa 3 daqiiqo ayaan maaragtay isku walaaqayaa aan soo qaatay sixni waxa aan ku shubayaa dhexda aan ka dhigayaa spinach cagaaran oo salad oo aan dhaqay cunada waxa habboon saladka marka aad soo gadid wax kasta ayuu lahaan karayaa pesticide wax walba ayuu lahaan karayaa marka waxa habboon inaad maaragtay iska dhaqdid saladkii carrotska ayaan dhexda ka dhigtay waa ujeedaan sixnigana sida uu ku soo baxay aad iyo aad u qurxoon yahay carrotski waa dhameeyay hadda waxa aan suubinayaa coriander beef presentation kiisa weeye quruxdii ahaa waxaan soo qaatay sixni waxa aan ku shubayaa hilibkii oo aan dhexda ka dhigayo oo aan ku qurxinayo si isla eg si maaragtay presentationka oo u noqdo waxa aad iyo aad u wanaagsan cunnada waxaa habboon in ay qurxoon tahay waxa aan dhinac ka dhigayaa basal cagaar waxaan kaloo aan ku darayaa aan ku qurxinayaa cranberry waan dusha kaga daadinayo cunnada sembere waxay ku habboon tahay in maaragtay presentationkeeda aad iyo aad u qurxoon yahay so far waxa aan dhameeyey carrotski waa dhameeyey coriander beefkina waa dhameeyey labadan dish aad iyo aad ayay u macaan yihiin isku day inaad suubisid meel alla meesha aad joogtid barnaamijyadeena waxa aan noo suurtageliyey in aan suubino somalifood.tv iyo markacadey.net aad bay u mahadsan yihiin markacadey.net iyo somalifood.tv anigoo ah sheekh cabdicasiis dhicis horey waxaan idiin soo bandhigay wiigii hore 4 nooc oo loo suubiyo cream caramel wiigga soo socdana waxaan soo qaadanaynaa barnaamijyo kale oo aad iyo aad xiiso u leh glazed carrotski waa ujeedaan aad iyo aad buu u qurxoon yahay is really very beautiful coriander beef stir frygiina waa ujeedaan aad iyo aad buu u qurxoon yahay inta aan ku kulmi doono barnaamijkani barnaamij la mid ah anigoo ah sheekh cabdicasiis dhicis waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waxaana mahad mudan oo xusud mudan markacadey.net